waxaad soo martay maalmo wanaagsan laakiin waxaad kaloo soo aragtay kuwa xun ma haysatid wax kasta oo aad rabtay laakiin waxaad haysataa wax kasta oo aad u baahnayd waxaad seexatay adigoo xanuun ku hayo haddana waxaad soo toostay hurdadii adigoo fiican waxaa jira dad ku bogaadinaya oo kuu sacabtumaya laakiin waxaa kaloo jira kuwa gadaashaada ka hadla oo xumaantana ka shaqeeya waxaad ku dhowaatay inaad nolosha ka quusato laakiin rajo ayaa ku gashay wakhtiyo badan qosol ayaad isqaban weyday laakiin wakhtiyo kale uurka ayaad ka oynaysay indhahana ilmo ayaa kaa qubanayay waxaa jira maalmo waxan oo aad dareentay jacayl si ay tahay laakiin waxaa kugu xidhay maalmo nacayb kaa buuxsamay waad kuftay ood guuldaraysatay wax badan laakiin xaddi sare ayaad u kacday ood guulaysatay waxaa ku hayay caajis laakiin haddana waxaad haysatay caafimaad dhammaan waxani waxay ku dhacayaan sababtuna waxay tahay waad nooshahay noloshuna waa imtixaan laga yaabay in noloshaadu u socon sidii aad qorshaynaysay laakiin qorshaha alleh ayaa ugu wanaagsan laga yaabay in noloshaadu barwaaqaysanayn laakiin ay barakaysan tahay waxamdina allah subxaanahu wa tacaala sababtoo ah waxaad intaa ku soo gaartay fadliga iyo naxariista eebbe